ilhaan cumar gabar Soomaaliyeed oo ay Soomaalidu sharaftay ayaduna sharafta iska qaaday ayna wada habaareen muslimiinta dunida ku nool oo dhan qoftaan warbixintan uga hadlayno waa gabadha Soomaaliyeed ee loo garan og yahay ilhaan cumar oo kamid ah siyaasiyiinta Mareykanka haddana ku jirta xabsi warbixintan waxaan ku lafaguraynaa xariga ilhaan cumar iyo sida muslimiinta doortay ay ugu furtay furin cusub oo siyaasadeed fadlan daawade muuqaalkan share garee si uu gaaro muslimiin badan like-na saar naguna soo biir adigoo follow-na soo dhahaya si aad noola janqaado mahadsanid ilhaan cumar waa gabar Soomaali dhalad ah ayadoo qaxooti ah oo da'yar la geeyay wadanka Mareykanka halkaas oo ay ku kortay waxna ku baratay ilaa ay gaadhay inay ku biirto siyaasadda waxayna durba kasbatay qulubta Soomaalida iyo dadka muslimiinta ah ayadoo ku soo jiidatay codkarnimo iyo dhiiranaan ay gaalada kula doodayso Soomaaliduna way ku farxeen waxayna u arkayeen inay heleen gabar Soomaali ah oo codkooda gaarsiin ka meel dheer fagaarayaasha caalamkana ku matali kadha dawladii Trump waxay noqotay xidig siyaasadeed ayadoo si buuxda u difaacday muslimiinta taasi oo ay ku heshay taageerayaal badan ilaa ay gaadhay in dib loo doorto ayadoo loo abaalgudayo maxaa dhacay intaas kadib ilhaan cumar waxay sanadihii dambe dhex maquuratay fadeexado waaweyn oo diinta islaamka liddi ku ah waxaana lagu eedeeyay inay taageerto ururka qowmaluudka ee u ololeeya in dumarku isguursan karaan ragana sidoo kale ilhaan cumar waxaa tiro 15 jeer ah lagu arkay iyadoo ka qayb galaysa xafladaha ururka khaniisiinta iyadoo dhiiri gelinaysa dad badan oo Soomaaliyeed iyo guud ahaan muslimiinta ayaana ka carooday aynu markaan u gudubno dulucda warbixinteena iyo sababta keentay in la xiro ilhaan cumar sida la socotaan booliska caasimadda Mareykanka ee Washington DC ayaa xiray dad ay kamid tahay ilhaan cumar oo ah gabar Soomaaliyeed waxaana lagu eedeeyay inay magaalada Washington ka sameeyeen qalalaase iyo rabshado ayadoo difaacaysa in dumarka uurka leh ee aan ilmahooda u hayn aabaha in ay iska soo xaaqi karaan taasi oo khilaaf iyo muran xoogan ka abuurtay gudaha Mareykanka waxaana arrintan isku hawaya labada xisbi ee dimuqraadiga iyo xisbiga jamhuuriga waxayna ilhaan cumar si indhalaan ah u taageeraysaa aragtida xisbiga dimuqraadiga taasi oo ay ku mutaysatay xarig waana arrin aan diinteena suuban meelna ka soo galin waxayna ilhaan cumar ku xadgudubtay diinta islaamka iyo magaca Soomaaliyeed iyo muslimiinta waxayna si buuxda indhaha uga xiratay muslimiintii ay matalasay dhaqankeedii iyo diinteedii taasi oo barmadow ku ah ilhaan cumar hoosna u dhigtay taageeradii ay ka haysatay muslimiinta dunida ku nool ilhaan cumar gabadhan u dhaxda ninka cadaanka ah ee Soomaalida ku abtirsata waxay jabisay darbigii xishoodka iyo kii muslimnimada kama hadlayno hal khalad ama laba ficil oo ka soo horjeeda diinta islaamka oo ay ku kacday ilhaan cumar ee waxaan ka hadlaynaa waa ku celcelinta ficilada diinta islaamka ka soo horjeeda oo ay ilhaan cumar caadaysatay Soomaalidu waxay ku mahmaadaa mayd maxaa u dambeeyay kaas la sii sido ilhaan cumar falkii ugu dambeeyay ee diinta islaamka ka soo horjeeda waa kan lagu xiray ee ah in ay difaacasay in dumarka uurka leh iska soo xaaqi karaan uurka subxaanallah fadlan daawade aragtidaada qaybta hoose ee commentiga nagula wadaag muuqaalkana share garee si uu gaaro muslimiin fara badan mahadsanid